السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهرين إلهي أمهات سكالي دمانتين هالكان سوكين وذا كيني أنا قوة نبض قبنا وحاسود أمينا يا دمان مرت شرفت هالكان فديسو أرد كي مد جامعة كل الدوان وقت قوة صهوري كفايدستان برامج كان diyaar u ahna inay aqoontooda wax kordhiyaan sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa ustaadkeena ustaad Cumar oo ah dhaqaaliyahan iyo cilmi baare waxaa leeyahay aad ugu maasantahay waqtigaaga aan noo hortay iyo in badan oo waqti isla soo qaadan intii joogtay aad bay u garanaysaa ustaadka waxaan rabaa inaan wax yar qeexo madasheena social science forumka waa madal loo sameeyay bulshada Soomaaliyeed si ay wax badan uga ogaadaan aqoonta cilmiga bulshada oo si wax badan ay uga kororsadaan wax badan uga fahmaan maadaama ay tahay wax aad ayaga u quseeyo bulshadoodana ku saabsan waxaa leeyahay waxaan rajeynayaa inta hadda hore ugu jirtay inta ku soo biirtay inta ku soo biiri doonto inay wax ka kororsadaan insha Allah mashruuceena caawa daahfuranayno waxaa jira mashruuc ka horeeyay oo ahaa mashruuci aqooneed iyo aragtiyaha cilmiga bulshada oo lagu soo qaatay dhowr aqoon-yahan oo kala duwan wuxuu socday muddo 6 bilood cid alaal cid u baahato wuxuu ku jiraa barteena YouTube social science forum way ka faa'iideysan karaan caawa waxaa daahfuranaynaa waji labaad mashruuc aqooneed looga hadlaayo aqoon-yahanada Soomaaliyeed wuxuu socon doonaa muddo 4 bilood ah waxaa ku daahfuranaynaa caawa aqoon-yahankeena سعيد شيخ سمطر waxayna soo jeedinayo Ustaad Cumar waxa la Ustaad Cumar mar kale iyo marar kale soo dhawow aad iyo aad ay u mahadsantahay salaama waxa marka ugu horeyso mahadnaqa iyo maaragtay iyo dhamaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala iskale taxigta bahda social science forum وحقيقة bah ma aragtay in muddo aan soo wada shaqeynay oo maaragtay barnaamijyo badan aan wada qabanay oo ay namidayso hamuunka loo qabo social science-ka iyo in maaragtay xiriir fiican loo sameeyo Soomaalida iyo social science-ka waa eegana aad ugu mahadnaqa Jamaal iyo asxaabtiisa marka xigta kuwii hore waxa ka wada heli kartiin YouTube-ka ka heli kartiin oo international ahaan dadkii saameynta weyn ku leh social science-ka oo kamid ahaayeen Karl Marx iyo Edward Said iyo Ibn Khaldun iyo maaragtay rag fara badan oo soo la fagurnay waxaa nooga sii horeeyay mashaariic kale oo eegana aan kaga hadalnay social research-ka iyo school of thoughts social science marka adi muddo juhdi oo dareemi kartid yani aan institution support gareynin oo sijil laakiin uu yahay dhalinyaro eega isxil qaamayo maaragtay oo marka fuliyay mashaariic aynan institutional research oo hadda magaalada ku yaalo magac sheegto oo fan fiican oo ku baxo aysan qabanin marka maxaa ka filaysaa marka hadii mashruuc saan oo kale uu support u fiican uu helo marka qaarkood waxaa isdhaysaa in mashruuc la fangareey macnahan wuxuu ka dilaaba dhadhanku ka dilaa marka xoogsiga iyo lagu wada maaragtay iyo sheeg qof isku tashado ayaa wax fiican soo saara marka qaarkood markii NGO-yada iyo hay'adaha maaragtay cadaanka markii ay lacag badan ku bixiyaan institutionada oo research-ka iyo social research-ka iyo macaahida waxaas ka shaqeeyo wax ma ka soo baxaan inta badan local-ka ahaan yani laakiin marka social science forum xaqiiqatan dad dhalinyaro ah oo jaamacadaha sanadka ugu dambeeyay iyo jaamacadda hadda dhameeyay ah in ay soo saaraan wax intaan leeg xaqiiqatan wax oo lagu faani karo yani marka insha Allah waxaan u sii rajeynayaa social science forum inuu noqdo mid oo hirgala caawa waxaan u fadhinaa rukni ka mid ah rukumada Somali Studies oo xaqiiqatan nin oo oday Soomaaliyeed ah maaragtay history scientist-na ah suugaanyahana ah ay maaragtay
oo in Soomaalida haddii ay maaragtay ay muddada soo socoto dadka Soomaalida ku faantay ay tahay oo ayuu ka mid yahay Saciid Sheekh Samatar. marka maanta waxaan u fadhinaa Saciid Sheekh Samatar kaliya ma ahan waxyaabo kale oo fara badan oo Saciid Sheekh Samatar ka sii farcami doona caawa san la fagurayna. marka waxaan rajaynaa PowerPoint-iga ama presentation-ka noo qoran horta waa English ku qoran yahay, laakiin Soomaali aan ku sharaxayaa inuu isaga koobto oo xooga aan saarno discussion-ka. marka Saciid Sheekh Samatar waa nin oo ku dhashay 43 البادية هو معركة ريجن كان هذا أو صومالية إثيوبيا كل شيء ننرى البادية هو جيل جرأها بيس قاضي ومنطقة عنك هاي دلي شخص سمتر. سعيد عن حقوقها إنه سجوا وين إنه لفر يستي أرديكية ير taasoo marka keentay ahaa nin isagoo weyn iskuul fariistay. marka waa fahmi kartaa ciyaal magaalo marka lagu keenay adoo reer baadiye ahaa oo qalaafa la geeyay kaas xagaas uu ka dhigtay dugsiga hoose dhexe ka dhigtay iyo sare uu ka dhigtay. Saciid wuxuu helay markii dambe scholarship wuxuu helay Mareykanka uu helay جامعة Goshen College الله وكقاعتي باج كقاعتي مركي وتجي مريكان كوتجي مريكان كارتوا نرشي Soomaali أو solidarity هاي اللي صارنا معه. مركا نرش حاجة جرتوا نرل النولانيس أنت أشقيست معناها نرش هذا waxay ku xiran tahay shaqadaada saadalaadeed westernka qofka shaqeeyo waa qof akhlaaq leh. macnaha akhlaaqna aan waxa u naqaana moogta runta iyo beenta iyo kaliya u naqaana, laakiin waa ayaga akhlaaq yani moral ama waa qaab qofkan noloshiisa qaab fiican oo bulshada la jaan qaadayso u nool yahay. marka qofka shaqeeyo waa qof waxa waaye bulshada la jaan qaadi karo. by the way سعيد وحو أهاقف قلنا واحد لقناي قلنا شقيناي ووقت بدن حتى بحكو قاعدين وشقيو سو صارت نورشيسة مركا بلاس مركا نورشيسة وحبرشو كل ماي مركا حفاهم كرتا سعيد نورشيسة وحاسة سي لولن ما أركت مرو وعملنا لولن كل جري ونين ربادي جيل جري نرشاس هذا كنولا يمرو لولن كل جري نرش مودرنتيجة وكبلا وتقلف مركو إماضي ودكس سكول ودكتو وحبرش عصري وقالوا إلا ومريكان كتجو سعيد وحوقها مركا إلا مركو وين هذه سعيد شخص متروحة كدر ميسا قفك الصومالي سيزو ألفر قالي كرم مودرنتيجة إلا هيركيس اللي قاري كران يعني. سعيد مركا نرشيسا halka ugu weyn ma aragtay oo rabna caawina ku dul istaagno waa PhD-giisa tiiska PhD-ga uu ku qaatay 79kii jaamacadan Eastern Kentucky University kaasoo ma aragtay departmentigan oo taariikhda. marka Saciid tiiskiisa masterka ah oo 70kii uu qaatay ay 70kii markii tiiskiisa uu bandhiga loo ogolaaday xaalad waxa jirto wax la dhaho déjà vu wada maqasheen. déjà vu waa xaalad as leedahay marka qaarkood aad galaysid as leedahay niyo momentigan ama laxdadan ama hore ku soo martay hadda ana waxa hore waxa dareemay inaa hore noo soo martay anaga saan u fadhino oo marka وحالات إلا هذا scientifically تفسير يعني لو ما هاي ممكن حالة ديجافو الله لو بحد هان سعيد حالة ديجافو حو قالي سجوا أورنين أو يار أو ربادية أو مجال تولوين كي وكتجي قلا في معركة ريجن كي مش كتجي يصير طواتن كي مع سجوا ريسيرشر أو معلومات رادين يعني مركا
macluumaadku raadinayay wuxuu la kulmay dad badan tuulooyinku tagay ilaa muqdisho imaaday dadku caan la kulmay kamid ahaayeen Saciid Maxamed Cabdulle iyo maaragtay rag kale badan oo isag ma lama kulmin sorry macnaha baxtigii tiiskii wuxuu raadinayay waxay ahayd Saciid Maxamed Cabdulle Xasan ayuu ka raadinayay information tiiska uu qoro marka rag waaweyn oo la kulmay oo ay kamid ahaayeen أو ظاهر أفقرشة iyo jaamac Umar Ciise iyo Muuse Galaal iyo Maxamed Meegaag Samatar iyo ragaas uu la kulmay ragaas markuu la kulmay isagoo raadinayo macluumaad ku saabsan Saciid Maxamed Cabdulle Xasan marka wixii markuu isku geystay diskiisa wuxuu ka koobnaa labo variable ka oral poetry gabayga iyo Somali nationalism labadaas variable oo diskiisa ku saabsanaa marka oral poetry-ga iyo oral poetry gabayga afka laga sheego ama waxa Carabi lagu dhaho ash-shi'r shafawi iyo qowmiyadda Soomaalida xiriir nooc ka dhaxeeyo isagoo soo qaadanaya case-ka Saciid Maxamed Cabdulle Xasan oo marka tiiska waxaa la publish garay 82 tiiskaas marka Saciid wuxuu la fagurayaa oo xoog saarayaa shantan arin Soomaalida wuxuu leeyahay nationalism-ka horta Soomaalida markii ay noqotay bulsho casri ah ayaa waxaa dhalatay fikradda nationalism-ka fikradda nationalism-ka Soomaalida political iyo social basic ee u noqotay Soomaalida isku keenta waayo taariikhda colonial ka horeysay waxa la dhaho nationalism ma jirin sababtoo ah ma jirin waxa la state nation dawlad qowmi ah ma jirin sadaraad marka looma baahnaanin wax la dhaho nationalism Soomaalida waxay ku nooleed xaalad ah in state city wax la dhaho state city macnaha waxa waaye Zeylac dawladda ahayd muqdisho dawladda ahayd marka state cities waxaa maareynayo family ama suldo la isku waafaqay ayaa maareynayo wayna ka kooban tahayna midaan la dhaho state nation-ka colonial kadib waxaa bilaabatay marka state nation marka waa Soomaalida basic u noqday si loo sameeyo state nation loo sameeyo marka qowmiyad ma jirayso haddaanan jirin dawlad qowmiya wuxuu kaloo ku dooday Saciid wuxuu kaloo ku dooday Saciid Maxamed Cabdulle Xasan wuxuu ahaa uu yiri nin qowmi ah oo halgamaa ah oo u dagaalamay in la helo Somali nation state sadaradeed wuxuu leeyahay si qowmiyadda Saciid Maxamed Cabdulle Xasan imaginationkiisa ku jirto ma ahan nationalism-ka ama qowmiyaddii Talyaaniga ama Ingiriiska ay wadeen marka wuxuu leeyahay isaga Saciid Maxamed Cabdulle Xasan nationalism-ka iyo qowmiyadda uu rabo waxa basic u ah marka wuxuu leeyahay pastoral culture macnaha reer miinimada iyo gabayga ayaa asaas u ah qowmiyaddii uu ku fikirayay Saciid Maxamed Cabdulle Xasan sadaradeed isaga marka wuxuu awood saarayaa markii aad tiiskiisa akhrisid waxa madrasadan la dhaho structuralism-ka oo sheeg xoogga saaraysa qaabka bulshada u dhisan tahay dood kale jirto waxa waaye isaga structuralism-ku waxay daraasaysaa qaab dhismeedka bulshada laakiin isaga wuxuu ka daraaseeyay luqaddu ka sii daraaseeyay marka wuxuu hoos imaanayaa madrasada Disoso iyo nimanka symbolic ahaa ee luqadda iyo daraaseynaya naxwaha iyo ka daraaseynaya bulshada taariikhdeeda iyo qaab dhismeedkeeda marka xogaha Levi Strauss ee madrasada structuralism-ka thesis-kiisa wuu ictimaaday waa sax waa analysis ku isticmaalayo Saciid marka
ميشك ميثود أهان methodology استعماله واستراتيجيزم هذا قاب كسر شيء استراتيجيزم مدرسة فرنسيس وبدنا ليفي ستروس جروب كاسي هاي وأنثروبولوجيستي هاي مرك بالشور بك دراسين وحد دراسين بالشدان محاب بيسك واحد اسمه هذا مثل مرك صومالي مرك لو يكون الجيان methodology صومالي واحد بيسك ونقناي مرك استعماله وريرة غير نمضر ووافقسيها سعيد شخص مترنا نتيجة وحلقة إسقى إيو أيام لويس ما عرفت إيو إسقى إيماني يعني مدرسة سواء إن الصومالي ذا هدي الرب إن لفهمه وإن لفهمه قاب اسمتك أما وحنا جيت كان حرير كريرة ساتر بركة حلقت لي يا سعيد إنه كتير سنة مدرسة دان مودرن تيجي مركز لقفك thoughts and philosophy لقى هاللايو methodology social science كنا تيسكيس وحوس إيمانا استراتيجيزم ليفي ستروز iyo teamkaas marka aragnay qaabkii uu dhisnaa tiiskiisa saddex elementa waxay u ahayd Saciid Sheekh Samatar saddex geesoodkii uu noloshiisa inta badan daraasaynay waa oral poetry oo gabaygii ahaa waa qowmiyadda waa muqaawamada marka wuxuu muqaawamada waxa matalo iyo oral poetry la isku geeyay iyo nationalism ka inta wuxuu ka dhex raadiyay shakhsiyadii Said Maxamed Abdul Xasan marka wuxuu daraasaynayay Soomaalida dhaqankeeda waxa muujin karo suuradda soo saari kara wuxuu leeyahay isaga wuxuu ku dooday inay tahay gabayga حتى دير Soomaalida taariikhdeeda in la baaro waa in la baaro Soomaalida gabayada iskugu jawaabeen حتى wuxuu leeyahay research fiican oo gabay xayir oo ku daraasaynaya حتى kaasa aad oo xog oo maaragtay xog badan saaraya gabay kan xogaa waxa ku jirto nationalism ka ciriirinaya iyo taariikhda kaas waa taariikhda gabaygu si fiican uga sheekeena marka si oo marka saddexdan oral poetry nationalism iyo muqaawamada xiriir ugu sameeyo shakhsiyadda kaliya oo Saciid ka dhex arkay in linkidan abuuri karto waa odaygii ahaa Sayidka marka Sayidka ka hor aniga Saciid ka hor Sayidka looma eegayn inuu yahay qof ma aragtay in oo la daraaseeyo la baaro ama Somali studies muhiimadda ma saarin xagga nimankii ahaa Ayam Lewis iyo Andrew Whiskey iyo Galaal luqadda eego xooga saaray laakiin ma ictimaadin gabayadiisa Maxamed Abdul Xasan oo saddexda nin labada nin waliba Andrew Whiskey iyo Muuse Galaal nin waxay ahaayeen language-ka ka imaanay Lewis ka duwanaayo ka imaanay anthropology Lewis buugiisa Somali buugiisa modern Somali history sayidka iyo daraawiishta jabtar kaga hadlaa oo waliba aan dhihi karno aad wuxuu ugu dadaalay Ayam Lewis inuu xogaha uu noqdo nin ma aragtay dhaxaad ka noqdo oo isku dayay marka laakiin Saciid wuxuu waxyaabo ku guuleystay xawaa wuxuu aad more than Said Maxamed Abdul Xasan wuxuu ka fikiray inuu matali karo nationalism iyo projecti ka soo horjeeda mashruuca isticmaariga ma aragtay xadiiska ka soo horjeeda waana markaas shakhsiyadda Said Maxamed Abdul Xasan waxay yeelanaysaa ahmiyad ka duwan midkan hadda oo ma aragtay oo aan isdhihi karo xogaha waxa ku jirto ka badbadin iyo waxa ku jirto ma aragtay in si aanan mawduuc ahayn shakhsiyadda Said Maxamed Abdul aan loo fiirin marka Said Maxamed Abdul Xasan marka soo istaagtid narrative kareeraha soo istaagtid nin wuxuu ahaa oo reero badan ku duulay oo ma aragtay narrative-kaas ama hadaa soo istaagtay narrative-ka ah in uu Said Maxamed Abdul Xasan isticmaalayay narrative ah Soomaali in isku keeno gumaysiga laga saaro Soomaali ay u soo noqoto ma aragtay dhaqankeeda iyo taariikhdeeda iyo diinta ay ma aragtay islaamka iyo Soomaalida ay haysato وانا شاكل markii ugu horeysa caankeed oo scholar Said Maxamed Abdul Xasan laga bilaabo
inuu wiil yar la kulmo uu weydiiyey magaciisa yani macnaha halkaas waxaad dareemaysaa meesha ay ka bilaabanayso kalaashka qofka Soomaaliga ah iyo ma aragtay mashruuci isticmaalka ee bulshada la rabo in laga bedelo ma aragtay ama maqaarkeeda laga dhex saaro marka Sayid Maxamed Xasan mashruuciisa bilowgiisa waa mashruuc akhlaaqi ah oo muqaawamo ah halkaas marka wuxuu noqonayaa mashruuci ugu horeeyay oo xadiis ah macnaha taariikhda xadiiska ah oo Soomaali ah oo raadisay dowladnimo Soomaaliyeed oo ka baxsan gacmo shisheeye marka taariikhda oo qarnigii maaragtay quruntii dambe qarnigii 19aad qarnigii 20aad marka sayidka ahmiyadda xaggaas uu ka helaa saadalaada marka saddex geesoodkan waa saddex geesoodkii macnaha u yeeshay teesiska Saciid Sheekh Samatar marka odayga ahaa wadaadkii waa loo bixiyay ama Maad Mulla كلمة ملا كلمة ما قا إنجليش نتاهي ما قا أفغانستان هو استعماران مركب ما قرنا ملا اسمه شيء وحال لها لبنا ارتيفة جرت كلمة دان بعد مولاتك والله يا أبي حيسي مع عبد الحسن لبا ضد حاجة ليش أبي حي أضاقي جي هايس أضاقي كولونيال أدمنستريشن كا سوماليلاند كا ugu horeeyay ayaa isaga waxa la u bixiyay wadaadkii waan la oo markuu u diraayay ma aragtay ingiriiska la wadaagay nin waalna waxa soo baxayba ingiriiska oo afka u dhiganay mesela ama maye dooda kale waxay dhahdaa maye ninkan markuu ku soo noqday berbera ku soo noqday ayaa wadaadkii macalinkiisa ahaay Sheekh Caruuse Sheekh Abdullah Caruuse iyo Sheekh Madar ayaa waliba Sheekh Xaafad waxa lagu kulmay Sheekh Caruuse xaafadiisa lagu kulmay Sheekh Caruuse wuxuu ahaa macalinkii wuxuu ahaa Sayid Maxamed Abdullah Xasan marka Sheekh Madar iyo Sheekh Caruuse iyo culimadii qaadiriyada ee Sheekh Madar wuxuu ahaa mumathilka qaadiriyada ee Hargeysa Sheekh Caruuse wuxuu ahaa qaadiriinka matalaya berbera marka iskugu waa loo yeeray waxa la yiri waxa yimid nin oo wadaadkii Sayid Maxamed Abdullah Xasan fikrad cusub buu la yimid la yiri wuxuu la soo kulmay wadaadkii ma aragtay saalixiga ahaa ma aragtay Suudaani oo la soo kulmay dan ra'yi cusub la yimid oo qaadka inuu xaaraan sigaarka inuu xaaraan yahay adiga wuxuu bilaabay inuu revolution oo ka dhex sameeyo magaalada berbera laga dhex dareemo marka dooda dhex martay marka wadaadadii marka sayidka hal markuu soo noqonay waxay ahayd lahaa 97 98 kusdeed boqol yani kusdeed markuu soo noqonay berbera dan wuxuu ku yiri markii dooda la badiyay wuxuu ku yiri ogaa uu adkeys uu difaacay wuxuu yiri dhageysto Sheekh Caruuse waliba wuxuu sheekhow معلنا أي أحد جدوا يلادي لكن ماتا يا أنا يا مات كعلم بدني ولو حو استعمال أنا قطب زماني لكل زمان له قطب وأنا قطب هذا الزمان ولكن بحيث إني نكي سيد محمد عبد الله نكي وزمري واين وحناقين سيد كم كوان سياسي وآي مكو أركين لقى حناقي هذا الكود الجيو حوير و سي وحلو كرتجي ماشي أو نبتقليه حلو كرتجي ذن نمك ضد قادرية إصلاحية وده حيسي قادرية وحيو استعمال شاء الله سيد محمد عبد الله حسن وذات كي والله مركا سكول شيء جايين نحن واحد يجي وذات كي والله وذات كي والله تاسع مركو حال لها ومقع وذات كي والله قادرية بحس marka oo naqdigoodii iyo wadaadku naqdin jiray waxay jireen wadaadkan waaliye marka xaggaas waxa ka dhalatay wadaadkin oo Maad Mulla marka taariikhdeeda intaas way Sayid Maxamed Abdullah Xasan ahamiyadiisa Saciid Sheekh Samatar uu ku dooday wuxuu leeyahay ninkan saddex administration la dagaalamay gumaysi waa Ingiriiska waa Talyaaniga waa
ii sheeg maamulkii xabashida saddexdaas daree angalkaas uu ka dhex dagaalamayay sayid maxamed cabdulla xasan marka halkaasaa marka wuxuu leeyahay waa deegaanka soomaalida ay degto waa yani macnaha soomaali intay degto waa saddexdaas koloniyaala kala haystay NFD iyo Somaliland waxaa haystay Ingiriis koonfurna dee Talyaaniga haystay iyo dhulkan regionkan Soomaalida degtay ee Etoobiyaanka imaratoriyadii xabashida ay haysatay waa halkaas markuu leeyahay mashruucaasi maxamed cabdulla xasan ee dowladnimada ah ee qowmiga salka ku hayso sayidka marka wuxuu leeyahay taa daraadeed sayidku wuxuu leeyahay wuxuu ku tilmaamayaa Saciid sayidku inuu ahaa the father of the modern Somali nation oo isagoo ka duulaya saddexdii aan soo sheegnay wuxuu leeyahay marka isaga aabbo ah waa resultigu uu gaarayo marka sayidka marka hadda anaga aan tiiskii xagga iska soo dhigno sayid maxamed cabdulla xasan nin waxaa waayey oo Soomaali ma jirin taariikhdeeda ya si buuq iyo muran uga dhashay taariikhdiisa iyo ma aragtay performancegiisa qof sayid maxamed cabdulla xasan kale ma jirin yani oo atbaaciis waxay u yaqaaneen inuu ahaa nin oo waliyo min awliyaa illah yani dad qaarkood waxay u yaqaanaan nin mujaahid ah oo aanan ka liidanin ya hadduuba ka adaa fiican yahaba sheekhi liibiyaanka ahaa sheekh cumar mukhtaar dadna waxay dhahaan nin gacan ku dhiigle ah oo ma aragtay dad badan laayay ayuu ahaa oo mujrime marka sheekha mushkiladiisa marka waxaa waaye saddex qolo waajahay horta waxaa daleemaha ka dhigaysay maxamed cabdulla xasan waxaan qabaa saddex jabhadood ka dagaalamay saddex jabhadoodna uu ku fashilmay sayidka jabhadda koo jabhadda qaadiriyada ahayd oo markuu imaado madaxa isdareen ayagana u bixiyeen sheekhi waanla wadaadkii waanla ilaa haddana oo maadmul loo yaqaan wadaadkii waanla loo yaqaan madaxuu daray waxay madaxa isdareen reerihii sayidka la degnaa sayidka isaga waa nin ogaadeen ah waa intuu soo baxay oo aabihiisa soo guuray oo soo dhex degay dhulbaantaa soo dhex degay ka guursaday xaggaa sayidka ku dhashay marka sayidka marka ciidamadiisa iyo bayskii uu ku dagaalamayay dhulbaanta u badnaa marka hal sayidka ogaadeenkii uu la dagaalamay saaqii uu la dagaalamay yani reero badan madaxa istareen oo kulli jaarkii dadkii reerihii dariskii ahaayeen taasna waxay ka mid tahay waxyaabaha dileemaha oo sayid maxamed cabdulla xasan shakhsiyadiisa aad kaaga yaabinayso sayidka wuxuu madaxa isdaray nimankii ahaa administrationka gumaysiga madaxa isdareen oo dee caankii aheedoo tii uu markii dambe ninkii ahaa Richard Carver Soomaalida waxay u yaqaanaan Kofi Richard Carver wuxuu ahaa wiil yaro oo Ingiriis ah oo police officer ahaa oo wuxuu joogi jiray Nigeria waa laga soo wareejiyay Nigeria Kenya la keenay markii loo taagi waayay sayidka uu daraawiishtii ay maaragtay ciidan badan u isticmaalaa Ingiriiska oo Hindi iyo iskugu jirta iyo Soomaali iskugu jireen iyo meel gumaysi marka dambe waxaa la dhahay bal haloo keeno niman officer oo Ingiriis oo dagaalkan marka Richard Carver wuxuu ahaa raggii loo keenay ahaaba maadaama khibrad badan Hindina uu joogay Nigeria uu joogay Kenya uu joogay waa loo keenay marka dagaalkii dulmadoobe batalaal caan waaye ayaa isku helay marka la isku helay Ingiriiskii waa looga adkaaday iyo ciidamadiisa meeshii marka waxaa lagu dilay Kofi lagu dilay oo waxaa la dhahaa Soomaali wuxuu ka yaqaanay bes ka yaqaanay markii la sii dilayo wuxuu yiri bes ahaayay adiga gabayga caanka ahaa marka oo adaa Kofi jiitan dunida joogeen marka waxaa dareemaysaa sayidka inuu aad nin uu ahaa international oo yaqaano
calaaqaadka dawliga iyo yaqaan wuxuu yiri ingiriis jabyo waxaa ku dhacay jac iyo baaruud weligii waa lagu jabiyaa jilib dhig duulaan anaha ingiriiska wuxuu leeyahay dagaalo badan waxaa jira ingiriiska oo Masar iyo saxarahan Liibiya saxarahan Tunis iyo u dhaxeeyo iyo oo naaziyiinta ay kaga adkaadeen ingiriiska oo marka dambe iyaga adkaan doonay laakiin xilligadaas waxaa dareemaysaa sayidka inuu akhrinayay wax adduun ka socdo ogaa marka wuxuu yiri weligood waa lagu jabiyaa jilib dhig duulaan anaha nimankaas waxay isgaarsiiyeen gacan ayaa aad ma aragtay dhiig u laha dhaxmartay ingiriiska iyo sayidka marka saddexdaas jabhado ka dagaalamay ayaa waxay u geysay shakhsiyadiis dhaawac weyn u geysay waxyaabaha dhaawac weyn u geysay shakhsiyadiis waxaa ka mid ah sayidka oo ilaa hadda muran ka taagan yahay dilkii Sheekh Aweys al-Baraawi Sheekh Aweys waxaa la dilay 1909 magaala tuulo yar beledweyne agteeda biyo la dhahaa lagu dilay marka waxaa la dhahay erey waxaa jirto Axmed Faarax Idaaja wuxuu aan ka arkay isagoo soo tabinayo beed uu leeyahay sayidka iskale oo markii Aweys la dilay uu qaaday uu leeyahay wuxuu yiri waxaan ka xasuustaa intii ugu qoran canda dogoble markaan dilnaa roobka noo da'ay wuxuu yiri dambigii falaya Aweys loogu duurgalay canda dogoble markaan dilnaa roobka noo da'ay yani oo soo ku qiranayo inuu Sheekh Aweys al-Baraawi inuu dilay marka noocan ma waxaan dareemaysaa inay tahay loolanka horta u dhaxeeya qaadiriye iyo saalixiyada labada ninna waxay kala ahaayeen laba nin oo kala matalayay labada dariiqadood Sheekh Aweys way ficnaan lahayd mar in aan ka sameysano dul joogsano yani qof wuxuu ahaa isaga xataa intellectual oo Baghdad tagay wax ka soo bartay Baghdad Soomaaliya yimid أتقاني مقالة تولان يرى بلد الأمين أفجو يكتدي أيا وحو أحد حرن وأحد مركا وجوي إلا وحو جارال لا تنزانيا إلا تنزانيا وجاري وحتى المقاومة دي معركة أفريقيا أنغولا إيه لغة على ماي يشك وهانين فتوين كلها حتى استعمار الإسكعلي مركا Aweys marka waa isqabteen marka waxa leeyahay marka waa loolanka u dhaxeeyay mar dhaxdaasa waxa aan maqlaayay dood dhehayso sayidka ma dilin Aweys ma dilin oo Sheekh Aweys waxa dilay ciidamo oo Talyaaniga ahaa ee Libski xirteen daraawiishta dilay doodaas waxa qabo Sheekh Aweys wiilu awow u yahay oo ka baxay barnaamijkan la dhaho barnaamijka Haruun Macruuf galka baarista waxaa jirto xalaqo uu kaga sheekeynaya sayidka iyo laakiin isla xalaqada Axmed Idaaja ayaa su'aal fiican soo wuxuu leeyahay haddii la iftiraado Talyaaniga inuu dilay Sheekh Aweys faa'iido ugu jirta maxay Talyaaniga inuu dilay Sheekh Aweys سؤال كلام مهم كأنه حواي بلد الأمين محو جوري Sheekh Aweys oo u dega biyoole marka waxay leeyihiin Talyaaniga isaga wuxuu leeyahay Axmed Talyaaniga ayaa wuxuu rabay in uu Sheekh Aweys iyo qaadiriyada uu ku beero dhulkaas si aysan saalixiyada u soo gaarin saadalaad marka sheekhi iyo xirtiisa ayaa biyoole la dajiyay وأساساً كسر ويرين إن لمنكي ها صالحية ذا كسر كوب زي ما عبد الحسن مركا وأنا حنقبع حالي عند إمام محمد الغزالي أري عجيب حلية هدانا الوقالين أو إن وعلنت هاي الوما لين متهد معناها قف أو أهمية كويا لنا التاريخ ده
marka qof iska jiifood maaragtay oonan qofna ka warhaynin iskuma qabsanayaba laakiin qof oo loolan galay Winston Churchill wuxuu dhahaa haddii aad cadow aad leedahay macnaheedu waxay tahay maalin baad go'aan yeelatay wax diiday marka sayidku waa nin xaqiiqatan oo noocyo badan waaye laakiin waxaanan biyo kama dhibcaan inuu yahay mashruucii Soomaaliyeed oo ugu horeeyay oo looga soo horjeesto gumaysi iyo mashruucii modernity-ga ahaa ee rabay Soomaalida inuu maqaarkeeda ka bedelo maqaar kale u geliyo marka sayid halkaas wuxuu noqonayaa mashruuc oo aanan maaragtay weli si fiican loo daraasayn halyeeyadii dadka ay lahaayeen ma jiro nin oo halyeey oo wadan soo maray oo muqaawamo la dagaalamay oo buuq iyo dood ka dhaafsay maxaa Cabdullaahi Xasan oo kale adduunka dhan badanaa yani مثلا ليبيا وحاجرو شعون المختار السودان وحاجرو مهدي لبدا نمبا وحكيهين لبدا ودن رموز او اد لو تحقلي او الاحترام او لسكوا فقسيا لكن سيدك وحالد وحاواي او اد عجيب يعني ودحيو دد مجرم ديغيعب iyo qadiis ma aragtay aan khaldamin waliba sheekooyin oo de aad kaaga yaabinaya fatiic falxumo badan oo laga sheegay yani markii laga hadlayo dadku dilay ma aragtay iyo criminalka uu sameeyay isku soo kooban waxaan qabaa ninka hadduu saddexdan ma aragtay monster saddexdan waxsh hadduu la dagaalami lahayn ninkan ma geli lahayn yani marka su'aasha kusoo gabagabayna waxay tahay hadduu mashruuciisa maxaa Cabdullaahi Xasan guuleysan lahaa Soomaaliya say u ekaan lahayd yani waa su'aashaas iyo waxa kusoo gabagabaynaa Somali nationalism wuxuu u baahan yahay yani in reform lagu sameeyo xaqiiqatan anaga Soomaalida markii la dhahayo ereyga iska fuudiyaa moogtahay aan ka guurno qabyaaladda aan guurno قرن أو جورنا يعني لكن هاو سيو جورنا يعني هذا مواطنين وانا جو معركة أو ريرة أنا جو ريرة مواطنين وانا مثلا هذه لو فصلوا سيدا معركتي أو باسبور واحد يستا نشان أيدي اللي هاي مواطن واحد يعني ناس محيز محمسو كورنيس لكن حال ربع مشروع عفو كوين كي كميسيجا كاسا مركو حنكون نقول كرنا أنا جو معركتي دول تاجن ayaa dhaqankaas ku noqon karnaa citizenship waa citizenship oo ku taagan annaga taariikhdeena iyo ma aragtay iyo ilbaxnimadeena ta ku xigta waxa waaye Soomaalida dhaqamo kala duwan ay leedahay dhaqamadaas kala duwan Soomaalida ma dhehayna is dhaxgalaan laakiin in uu jiro is aqbalid yani oo laga guuro erayadan ma aragtay oo dadkaas af Soomaali kuma hadlaan dadkaas dhaqan Soomaaliyeed ma lahan iyo yani waxa suuragal inaad wax dhowr sano kadib in ma aragtay laga gudbo waxaasoo ay Soomaalida isdhexgalaan laga gudbo dhaqan Soomaaliyeed iyo original waay dadka original ma ahan waxaas macno ma sameynayso markii oo la rabo in la sameeyo nation oo isku dhagan saadaladeed dhaqamadaas inay iswaafaqaan wax u baahanaa dimuqraadiyad political democracy waliba iyo saddexdan mushkiladooda maarto waliba Soomaalida intellectualkooda iyo waligood ila siyaasiyiintooda iyo lagu wareersan yahay maarto diinta iyo dhaqanka iyo qowmiyadda saddexdaas ba hadii oo ma aragtay inta qaalib hal mucayin lagu rido ya oo Soomaalidu way noqon kartaa inay samaysato dowladnimo مثلا خليجك سؤال maxaa muhiimka soo hadda wadanka Qatar oo kale hadda waa wadan degan waay lash maxay tahay muxuu dimuqraadiyad uga baahan yahay marka muxuu uga baahan yahay yani in uu ahzaab siyaasi la sameeyo ma aragtay oo ana waxaan qabaa wadan walba ana had Soomaali khaliij iyo Qatar Soomaali had dimuqraadiyad u baahan
sababtoo ah annaga hadda colaad dhex martay annaga ma aragtay oo xaalado oo ma aragtay iska soo horjeedo oo isdiidooyin ku dhex nool isdiidooyinkaasi iyo xaaladahaas mushkiladaha keenay ay ka mid tahay resourciga oo lagu loolamayo ay ka mid tahay ma aragtay balanceigi oo siyaasadda iyo power balanceigi uu jirin waxa u baahanaa marka dimuqraadiyad waxaan isku balance garayso marka anagoo maaragtay reeraheena ah oo waxayna xambaarsan oo geeleyna wadano oo dameerkeena wadano oo lo'deena wadano waxaan samaysan karnaa ma aragtay dawlad samaysan karnaa muhiim ma ahan dadka leedahay inay geeley noqdaan dadka beerle nin walba marka isaga wixiisa wato ya inaan waxaan isku darsano ninkeeni ma aragtay yaambada watay iyo ninkii macawiista wato ma aragtay ushiisa inta u saarneed iyo ma aragtay ninkii qowsaarka ahaa lo'diisa watay inay hal ma inta wax isku samaystaan oo nin walbana goonigiisa qaato laakiin waxna mideeyo aan samaysano ana waxaan qabaa saas Soomaali nationalismkeeda ku ficnaan kartaa aadan u mahadsantihiin